السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أدين أدبان إذن سلام يا دمان أمد الصوماليات ملك ساعة تاني سكستو هذه مغلسان بوا ولكن خضر waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan bulshada ila soo xiriirtay gaar ahaan fanaaniinta ay ugu horeysa Farxiye Kabayare walaashay dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan wariye Khadro wariye Bishaar Ali Bandey wariye England Show iyo dhammaan kooxda xujo oo aan kamid ahay dhammaantiin aad baan idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ma doonayo inaan insha Allah waxyaalo mowduuc dheer ka hadlo waxyaro kooban waxaan idin leeyahay arrin yar baan rabaa inaan ka hadlo insha Allah aan jecelahay inaan soo gabagabeeyo yani markaan idin leeyahay waxa weeye wixii xumaanoo naga tagay way naga tageen wixii nagu dhacay way nagu dhaceen wax allaale wixii isoo maray nolosheeda qayb kasta ahaa wax uun qoran bay ahaayeen qoraalka rabbina lama koobi karo lamana celin karo waxay igu ahaayeen waxay u dhacay oo qoraal ah qofku laba jeer inuu ballan qaado ma fiicno marka aad faraxsan tahay aad u faraxsan tahayna ballan ha qaadin marka aad u careysan tahayna ballan ha qaadin waayo labadaas ballamoodba emotion baa tahay xaaladaadu ma sugna maskaxdaaduna waxay ku dhibcaysaa ama sii deynaysaa hawo ka duwan hawadii aad ku jirtay marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay khaladkii aniga waan qirtay waxaan aad iyo aad uga xumaahayna way runtii 2-3 habeen ilaa hadda ma seexan xaaladan waxay u noqotay xaalad adag ninka rag aan xaalad adag uu maraa laakiin waa laga gudbaa insha Allah waana ka gudbi doonaa waxaan uga seexan waayna wax kala maahan dhammaan bulshada ila soo xiriiraysa khaladkayga la tusay dhan walba la iga cadeeyay inaan yani wax xun ku tilaabsaday qofka bini'aadamka malaa'ig ma ahan khaldama wallahi mana iga ahayn wax xumay waxaana yani codkii aan soo dhigayna xumaan kama wadin waxaan rabay bal sida aad inaad ogaataan ama aad aragtaan sida aniga walaashay xaalkeenu yahay aan u xiriirno qorshayaasheen u jeexan yihiin aan isugu wanaagsanahay unbay inaga ahayd in aan samaahane ma iga ahayn wallahi markii anigu aan soo dhigay xumay gabadhaas oo ama taqaana ceebaheeda faafi ma ahayn aad baan uga xumahay cimaamad hal igu tuuro wiil Soomaaliyeed baan ahay bulshada ay qabsatayna waxa weeye bulshadii Soomaaliyeed baa ay qabsatay waxaana ii sheegatay waxaana khaladkana iga qabatay qofka la jecel yahay waan runtii la qabsadaa la celiyaa lala hadlaa lana caayaa waan qiranayaa taas khaladkaygana waan qaatay insha Allah dib dambana u dhici mayso insha Allah halkaasna uga gudbi doonaa haddii Ilaahay idmo hal iga raali ahaado qofka bini'aadamka waxa weeye Ilaahay baa khaldamin waa khaldama waxaas wax ka badan baa dadka dhex mara wax wanaaji baan anu kulay islahaa laakiin dii markaas maskaxdayda waxa ku jiray wax wanaaji laakiin dhankii khaldanaa bay maskaxdayda ii hogaamisay run ahaantiina waxa weeye waxaan aad ugu xumahay wax sumcadeeda hoos u dhigay wax sharafteeda hoos u dhigay dadnimadeeda hoos u dhigay dhammaan inta bulshada ay taqaanay Soomaaliyeedna aysan igu taageereyn waan ka xumahay runtii aad baan uga xumahay mana dhici doonto insha Allah waxaasi wax la mid ah dib bayna idin la wadaago waxaasi wax la mid ah inay dibdan u dhacdo insha Allah gabadha aniga xaskayga ama xilahaygana waxaan jeclaa inaan wanaajiyo haddii Ilaahayna garansiyo inta Ilaahay garansiyo haddii ay dhacdo inaan waxaan u dadaalayaa u rafan doonaa u ordi doonaa Ilaahay idinki in aan intii wixii wanaagii hore aan sameyn jiray mid ka sii sareeyo inaan sameeyo hadda ii suurto weynada fillahi alxamdu hadda ii suura gashan hadda insha Allah waa u soo doobanahay marna aan waxaan aaminsanahay xaaskayga fahimo aan jeclahay inaan waxa weeye wax dhibaato ah oo dambe axkayga iska soo gaareen baan rajaynayaa dhan walba dhan kasta ay ahaataba insha Allah waxaan leeyahay insha Allah hawshan wanaag inaan ku dhameeyaan jeclahay haddii Ilaahay ii suurto geliyo laakiin waxaan fiidiyogan u duubayaa oo ku cadaynayaa qofka bini'aadamka inuu khalad sameeyo uu qaldamo uusan malaa'ig ahayn uusan Ilaahay khalad aan sameeyna uusan mataqaanaa uusan marnaba intuu nool yahay si nafka baxaysa uu khalad sameeynayo dhan walba waxa u jiraan dhan walba khalad ha ka imaado dhan walba xaaladdu ha ka adkaato dhan walba mataqaanaa waxa laga qarqariyo laakiin si duuduuba waxaan u qaatay khaladkii si duuduuba waxaan u qaatay wixii mataqaanaa meeshaas dhexda mas'uuliyadii dhexdeena naga dhacday aniga gabadhaas in aanu khaladka leeyahay si duuduuba waxaan u qaatay wax kasta oo na soo dhex maray ama mataqaanaa social media ama ha horeeyaan ama ha dambeeyaan anigu aan leeyahay si duuduuba waxaan u qaatay oo u liqay oo jeclaan lahaa markii horeba Ilaahay inuu xasuusiyo wax allaale iyo wixii gabadhaas aniga xumaan dhex maray inaan ku leeyahay aniga madax saartay idinkana walaalahay Soomaaliyeed baa tihiin xumaantaad ila necabtihiin samaantaad ila jeceshihiin sidaad wanaag ila jeceshihiin baan insha Allah aniga hadda kadib wanaag uga shaqeynaya awal waa ka shaqeyn jiray runtii waxaan waa wax qoran Ilaahay baa qadaray laakiin insha Allah dib dambe u dhacmayso biidni Illaahi kariim dib dambe u dhacmayso
sida aan kugu ballan qaaday baan insha Allah wanaag wax walba u noqonaya dhammaantiin marka waxa weeye qof khaldan iyo qof wanaagsan kana khaldan iyo kanaan ku wareeray iska daaya arrintii oo kooban oo khaladkeedii aniga qaatay ninka khaldamay waa aniga ninka wax gudbiyey waa aniga ninka reerkiisii mataqaanaa ka sheekeeyey waa aniga ninka gogashiisa ka warramay waa aniga ninka ilaa xad waxa weeye waxaasoo ceeba mas-uuliyaddeeda qaadana waa aniga waxaan jeclahay fahim inaan raaligeliyo aad iyo aad u raaligeliyo xaaskaygaan jeclahay marna walaashay ah marna wanaag badan iga gashay wanaag badan aan u hayo waxaan leeyahay iga raali ahaw boqolkiiba boqol raaligelin baan hawada ku samarinaya waxaan jeclahay insha Allah hadda ii suurta gasho inaan raaligelintaas si toos ah aan kuugu imaado kuna raaligeliyo kuna wanaajiyo haddii lahayd inkastoo mar walba ay niyadeeda ku jiray wanaaji wallahi run ahaantii iga raali ahaada ummad Soomaaliyeed baa tihiin bulshada maxaa weeye inaan mataqaanaa bulshada Soomaaliyeed oo inay wada inkaarto wada habaarto iyo wada caayda kule anaa su keenay anaa shalan iskiin baray maantana waxa weeye aniga khaladkii qaatay oo yani liqay wax kastoo jira insha Allah dib dambana waxa wax dambe oo wanaag aan ahayn igala kulmaysaa haddii lahayd anigu weligii ma jeclay inaan mataqaana fiima kala fogaano shalay carafa isu kacay keenay qadarna wayna kala kacayn kadhaa taas wayna ogaataan ma dhici yani ilaa maba kala tegi kadhan ha oranina waa la kala tegi karaa waa la heshiin karaa waa la isku dhici karaa bin aadan baan nahay khalad waa imaan karaa aniga marra idima dhahay yani boqolkiiba boqol waa nadiifan ka ah oo dembi mali laakiin ana khalad waa iga imaan karaa abaayadina khalad waa ka imaan karaa saas waa inaa ogaataan midda anigu aan nafteeda ka leeyahay waxaa weeyaan social media anaa iskeenay waana halka khalad aan nafteeda ka galay yani markaas aan leeyahay waxaa weeye anaa iskiin baray shalay social media anaa keenay yani farxadeeda walaashay inaan mataqaana soo wada fariisano annagaa mataqaanaa iswadanay annagaa nafteeda social media anaa uga sheekaynay nolosheena annagaa uga sheekaynay social media yani taas waan ka shalaya wallahi runtii waayo wax dembi oo aan lahayn waa maanta dusha laga saaray waxaasoo ceeb oo aan lahayn baa dusha laga saaray waxaasoo mataqaanaa cadaab iyo waarcaya dusha laga saaray welina waan ahay anaaba qaatay booba saad idinka jeceshin baa idin yeelay anaa dembiile ah anaa damiir xumo ah anaa dhibka geystay anaa walaashay ka tegey anaa iyada xumeeyey wax walba diyaar baanu ah laakiin waxaan ka baryayaa gabadha walaashay ha waalina wicitaanka ka daayay war maskaxda ha ka waalinina waa hooyo waa shaqaysaa ayadii baa teed la yaaban ayadii baa mataqaanaa aan la dala dhacaysa nafteedii ayadii baa mataqaanaa waxa ugu daranina walaalo stress ugu daranina saar ahaan fiiri wax yar meel yar baan ka tusayaa ciwaankii markii hore ay ka dhigtay sheekada ay ka dhigtay inay mataqaanaa wax isku qurxis ay u soo gelisay markii idinka aad buuqiin iyo qaydadiin aragtay oo bay qaladkeedii ayadu yani ay mataqaanaa fiidiyoogii wixii baa la saxmay wallahi waa basaxan tahay ciwaankii markii way bedeshay maxaa keenayo idinkaa waalaayo gabadhaa miskiinta iska daayay oo faraha ka qaada oo nolosheeda ha u noolaatay u daayay oo dembi cidna ha ka gelina walaa idinku tiina u noolaada waxaa laga yaaba gabadha wax ama wiilkaas ama gabadha wax kaa sheegaya inuusan maantaba cadayan baa laga yaabaa inuu maantaba qubaysan baa laga yaabaa social media soo dhex galay masariir ama kursi buu fadhiyaa camal la-aan baa haysa waxa weeye qof halkaa miskiin oo waxba kala ogeyn buu iska safanaya waxaan idin sheegayaa oo ilaahay iga ogyahay fahiime aniga qof iga jecel ma jiro dad walaala aabaan nahay xataa haddii tani dhammaato oo ilaahay ba ay dhacdaba ina mataqaanaa saas u kartay mid baan dhammaanayn wada dhalashadii ma dhammaanayn dhiiggii ma dhammaanayn isla jirkii ma dhammaanayn jacaylkii ma dhammaanayn sidaan shal isku ahayn baan isku ahaana waxaan leeyahay walaashay noloshaada u noolow farxaddaada u noolow adoo baan kaa tegi maayo adna sidoo kale aan kaaga rajaynaya adoo mataqaanaa wax la-aan ku haysa mataqaanaa kaa tegi maayo adigana sidoo kale aan kaa rajaynaya anoo mataqaanaa gaal iyo cadow iiga hayli ku dhahay inaada iiga hayli waayis ma aaminsani anna sidoo kale waa ballan horesan kaaga ballan qaaday ma hadda calaf wuu dhammaan karaa laakiin walaaltinimada iyo dhalasho ma dhammaanayso waxaan kaa codsanayaa social media inaan wax ceeba isku marin waxaan kaa codsanayaa social media inaanan cara isku marin waxaan kaa codsanayaa inaan dadkan ficilkan ku qaadin inaan dadkan isku waalin dumarka waxa la iyaga cadaabta u badan dadkan aad arkay sida yani geesaha kaagali kusoo wacay wanaag kusoo waci mayaan shalay kuwii ku caynayay waa abaaye fahim shalay kuwii ku caynaya waa gacantaydii midig baa tahay gacantaadii bidix baan ahay gacantaadii midig baa gacantaydii bidix baa tahay walaashay wanaag tira badan oo aad samaysta inta ku yaala qalbigan kugu hayaa
waxaa laga yaabaa wanaag annaga dhexdeena aan ka heshiin lahayn inay dadkii intay kaasii xanaajiyaan caladii kugu siyaado ani kaama tegin walaalkaa baan ahay qalbigaagan ku jira niyadaada ku jira anna sidoo kale